الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan aanu joognaa waa dhakhtarka gargaar ee ku yaala magaalada Hargeysa. waxaanu ku soo booqanay Xamse Cabdiraxmaan, waa inan yar oo 5 jir ah. waxa ku dhacay xanuun dhiiga ka dhameynaya 3 habeen markuu jiray laga bilaabo. hadda waa 5 jir, 15 cishaba mar baa dhiig lagu shubaa. dhakhaatiirtii wadanku waxa ay tilmaameen dhiigga lagu shubay mooyaane wax kale inaanay ka qaban karin. wuxuu u baahan yahay in la geeyo dhakhtar dabadeed. marka la eego qoyskiisu awood dhaqaale uma hayaan ilmaha yar oo ay ku geeyaan dhakhtar dabadeed. waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba, ilmaha yar aad arkaysaan waa Xamse, hadda waa 5 jir, 15 cisho marka uu joogaba wuxuu u baahan yahay dhiig in lagu shubo sida aad arkaysaan oo kale. arrinta noocaasi isagii waalidkiiba dhibaato fara badan bay ku haysaa. dad muslimiina baynu nahay, waajib waxaynugu ah inaynu iscaawino oo aynu nafqaybsi yeelano. markuu qof yar oo caruur u yahayna ka sii daran. waxaan idin xusuusinayaa xadiidkii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih. ilaahay subxaana watacaala addoonka wuu caawiyaa. addoonku markuu caawiyo walaalkii, ilaahay baa idin caawin doona subxaana watacaala, idin barakayn doona xoolaha iyo ubadkaba. haddaad caawisaan ilmaha yar, waxaad adigu suuraysataa un isagoo ilmahaaga ahaan lahaa dhibaatada noocaasi ay haysato, haddana waa ilmahaagii oo kale. siduu ilaahay yidhi subxaana watacaala inama almu'minuuna ikhwa. qof walba inta awoodiisu ay tahay, nambarada ka soo bixi doona shaashadda ayaa insha allahu tacaala qof waliba wixii uu awoodo ugu soo diri doonaa. waxaanan aada uga rajeynaya dadka muslimiinta ahi xaalado hore fara badan oo noocan oo kale waa ka qayb qaateen, tanna inay ka qayb qaataan. awoodna waynu u leenahay maanta haddaynu iskaashanin wax isku dardarro ilmaha yar inaynu dhakhtar geyno. wuxuu u baahan yahay in dhuuxa laga bedelo. waa hawl aada u culus oo u baahan kharash fara badan. sidaan sheegayna qoyskuma awoodaan. waxay garab taagan Cabdiraxmaan, waa ilmaha yar aabihii weeyaan. aad baan ula socdo, aniga warkiisu iguma cusba, muddo dheer oo sanada ah waan ka warhayo. mar hore ayuu iga warramay, mar walbana waan weydiin jiray. marka waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta ah, rag iyo dumar, yar yar iyo waaweyn, gudo iyo dibadba, ilmaha yar inaynu soo caawino. ilaahay baa subxaana watacaala ina barakayn doona. waxa aynu bixinana wax ka khayr badan inoogu bedeli doona. waana wax sahay aakhiro inoo noqonaya. ilaahay subxaana watacaala hayna waafajiyo. isagana ilaahay baynu caafimaad u weydiinayna. ilaahay baa caafimaad ka bixiya. waxa inagu aynu samaynaynaana waa asbaabtii ilaahay subxaana watacaala uu inoo jideeyey. dhammaantiin waad mahadsantihiin. wajazaakum allahu khayra. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.